والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى اللهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد maanta waxaan rabaa laba hambalyo inaan meeshaan ku diro. Hambalyada koobaad oo ah soo dhameystirankii ardayda internshipkii batch 5 medicine iyo maxaan ku radaa hambalyeenta jaamacadeena oo ka soo wareegtay asaaskeedii 15 sano. Waxaan leeyahay jaamacadayda hambalyo waxaan u mahadcelinayaa juhdigii iyo timekii iyo waqtiga ay nagu bixiyeen jaamacadda. Jaamacadana waxaan leenahay hambalyo kun iyo coacher aad u mahadsantihiin. ardayda maanta internshipka ugu ekaan ayagana waxaan leeyahay dhamaantood waxaan ku radaa hambalyo. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Bismillahir rahmaanir rahiim. Anigoo magacaygu uu yahay Maxamed Axmed Xuseen kana tirsan ardayda jaamacadda Balaasma gaar ahaan faculty-ga MBBS batch 5. maanta waxaan halkaan uga mahadcelinayaa dhammaan waalidiintayda macallimiintayda iyo inta ka soo qayb qaadatay waxbarashadayda. maanta waxaan noo soo bilaabay rotationkii ugu dambeeyay internshipka aan ku qaadanaynay isbitaalada Muqdisho sida Aadan Cadde, Isbitaal Soos, Banaadir iyo Madiina. dhammaan way mahadsan yihiin. sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa xafiiska tababarada caafimaadka oo madax ka yahay Dr. Cabdulle Axmed Ciiri. dhammaan waxaan u hambalyeeyaa dadka qalin jabinayo sanadkan dhammaan family Balaasma sanad guuradii 15aad jaamacadda Balaasma. aad u mahadsantihiin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. awalan waxaan hambalyo leeyahay dhammaan bahda jaamacadda Balaasma oo sanad guuradii 15aad ay ku beegneed 15kii bishii May. sidoo kale waxaan si gaar ah ugu hambalyeenayaa ardayda kuliyadda medicine-ka gaar ahaan batch 5 gaar ahaan group B oo team leader u yahay Khaliif oo maanta uu soo gabagaboobay maaragtay maxal dhigi jiray internshipkii muddo 10 bilood ay soo qaadanayeen ayagoo tagaan isbitaallo kala duwan oo ka mid ahaayeen surgery ay u tagayeen Madiino iyo Keedsanay pediatric iyo gynae obs oo u tagaan isbitaallo kala duwan ay ka mid ahayd Madiino iyo maaragtay Soos iyo maaragtay maxal dhigi jiray isbitaal Banaadir oo maanta ay ku soo gabagabeeyeen. sidoo kale community medicine ay u tageen isbitaal Warda maaragtay alxamdulillah guushaas weyn Ilaaha gaarsiiyay. ثم waxaa ku dadaalay waalidiintoodii ku soo abaabiyay yaraantoodii inay wax soo bartaan kadibna u suuro galiyaan inay soo gaaraan heerka marxaladda dugsiga sare markay soo dhameeyaan u soo gudbaan maaragtay maxal dhigi jiray heerka jaamacadda kadibna ay u dooraan wixii ay bar lahaayeen oo ah kuliyadda caafimaadka. dan intaas ka bacdi waxaa ku mahadsan macallimiintii maamulkii kala duwanaa iyo shaqaalihii jaamacadda Balaasma oo midba meeshii kaga aadan shaqada uu ka qabanayay kuwaas oo u suuro galiyeen in success-koodii 6 sano ka bacdi ay ku guuleystaan in ay gaaraan hadafkii ay lahaayeen oo ah inay dhameeyaan digriga koowaad ee jaamacadda. Allah subhanahu wa ta'ala noo suuro galiyay ka bacdina maaragtay maxal dhigi jiray dadkaas kala duwan oo qofba meeshiisa uu soo istaagay yaa suuro galiyay in guushaas weyn ay dhalato. alxamdulillah waay ardaydaas waxaan leeyahay hambalyo. gruubada xigana waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala maalmaha soo xiga inaan qolobo meeshooda ku booqan doono una soo hambalyeyn doono. waa mahadsantihiin. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. anigoo ah Abdulqaadir Amiin Maxamed bigtana jaamacadda Balaasma kuliyadda caafimaadka MBS batch 5. waxaan yani halkan waxaan halkan ugu soo gabagaboobay jaamacadda qaybteeda internshipka. waxaan halkan ugu mahadcelinayaa mid kale jaamacadda waxaan halkan ugu mahadcelinayaa jaamacaddeeda Balaasma sanad guuradii 15aad. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.